nabadan jecla inaan mar ku soo naste nasiib way keenay xamal nagaasha ku jira nabadan jecla inaan mar ku soo naste nasiib way keenay xamal nagaasha ku jira wilhaantiin meel walba naga daawanaysaan ku soo dhawaada waxaanu ku sugannahay magaalada muqdisho barbarkayga waxaa fadhiya laacibkii soomaaliya ugu wanaagsanaa waa basti blayerkii waa xasan xaasaasi oo in badan bulshada taageerayaasha u ahaa ee ku sugan halkaasi ay daawan jireen balse maanta si mulayfa uga hor fadhiyo halkan aanu ku sugannahay wuxuu ka mid yahay ragga aanu kula kulannay inta aanu ku jirnay muqdisho safarkeygii xasan mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow laacibka ummadda soomaaliyeed baa tahay taageerayaal badan oo halkan ku jira in badan way jeclaan inay mar live ku arkaan balgorayn ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad mahadsan tahay waxaan leeyahay TV aad ku dhawahay runtii maanta farxad ay tahay inaan waqti kula qaato taageeradayda iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan oo kubadda cagta xiiseeyaan waxaan leeyahay aad iyo salaama qof walba taageerada qof walba Soomaaliya mar walba jeclaan xasan aan ku soo noqdo dhalinyaro badan baa jecel halka kubadda cagta ka gaadheen mar inay ka gaadhaan ugu horreyn talo iyo tusaale artayga saameyn bay ku sugan yihiin wallahi qof walba ciyaaryahan ah Soomaaliya ku dhaqan marka Soomaaliya meel walba ku nool waxaan leeyahay qof walba ee ku xiran dadaalkiisa uu sameeyo si asaga marka isku diyaariyo oo training gareeyo waxaan leeyahay qof walba ciyaaryahan ah Soomaaliya waxaan urjeenaa intaan taariikh ka wanaagsan waxaan urjeenaa insha Allah xasan waxaad tahay khad dhexe badanaa waxyaabaha kubad sameeyaha uu ka saacido in kooxda guul ay gaadho ka mid tahay maxaad kaa caawiba saran kartaa heerkan inaad soo gaadho adigoo da'ya wallahi horta ciyaaryahanka maaragta markuu wax sameeyay waa asaga inuu isdiraco marka hore anigana taas waxaa sababtay noqday inaan maaragta mar walba idaacadaha ama hadalhaynteeda oo social media sare gaarto waxaan u soo baahay inaan dadaal mar walba aan sameeyo marka kooxda training aan sameeyo anigana galabtii aan training doon aniga nafsada aan macallin kale aan leeyahay la training gareeyo marka qofka ciyaaryahanka markuu rabo inuu dadaal sameeyo marka meel sare uu dhigsado waxay sida adag inuu shaqeeyo asagana uu helaa aan ku soo noqdo garowaad tagtay koobkii Puntland halkaa waad ku sugnayd marun ma rajaynaysaa Hargeysa oo taageerayaal badan ay ku sugan yihiin oo adiga si gaar ah inaad mar soo cagarayso wallahi horta Soomaali marka meel walba ay ku nooshay waa nabad waana jeclay Hargeysa mar walba inaan tago aad marka liigeeda aad soo ciyaaro ama ka soo dhex muuqda garoomada Hargeysa ka dhisan dadku ku nool walaalahayga inaan garabkooda aan istaago aad u jeclahay waan u dheerahay waan tagi doonaa insha Allah xasan aan ku soo noqdo hamiga kubadda cagta maanta kooxdaadii hore waad ka soo wareegtay koox kala timi ciyaartoyga Soomaaliyeed mar walba caqabado badan bay la kulmaanayeen challenge badan walaal inta ay ku jiraan professionalkooda meelo badan ay doonayaan dhigaan adigu xasan ahaan maxaad caqabadaad ka gudubtay wallahi horta ciyaaryahan markaa tahay dhan walba ama koox walba aad tagtay dhawaato waa la kulmay qof ciyaaryahan asiga ku xiran tahay badanaan ciyaartoyda Soomaaliyeed boqolkii 80 waxaa soo baahay marayka Quraanle oo ay yeeshan qor aadan waxa ka mid ah qofka kooxda u taliyo marayka qofka marayka kooxda hogaamiyo si qaldan loo naqmaa ciyaaryahan kale asaga u qalmina meel uu gaarsiinaya lagiya markaan waxaan ilaa ciyaartoyda Soomaaliyeed mar alaala mar walba marayka marka la kulantay wax dhibaato ah adiga diid ahaan ha isdhigan qof marayka mar walba dadaalkiisa gaaraya حسن رئيسيني من برتك كجنا وحكوني من مرون رياضة رجعي of professional fit sports وقوتها إذا رياضة عالم أنت سهم جاي من كل تمر من نفسه مقطع يارين والبردون جعلي قدر تنوح لسمين ترى ودك خفت يارين ودك جسم سمين ترى سمين طبعا هذا جعلها أمريكا برد مرون هذا واحد بدك تكسر إن شاء الله ومتبينتي حسن بدأ عقتها بس لا هلكي أنا رجيني سيقول تكاردي أدي قد أي رماتي والله هذا الثاني بس بيكرو وعنده إيش هكذا بعد تجاري ويل غريب كمان دسم حتى شيء يعني كمان يلا ما قاعد سومالي اللي هو ما هذا الثاني
professional zaid aan ku gaaro malaha waxaan jeclahay inaan kubadda cagta aan ka gaaro meel fiican insha Allah horyaalkan imika bilaabmaya iyo kooxdan cusub ee gaadiidka aad ka mid noqotay maxaad rajaynaysaa inaad kala kulmi doontid garoomada iyo sidoo kale challenge-ga oo sii badan doona marba marka ka dambaysa horta ciyaaryahan markaad tahay nabad badan waa la kulmay laakiin aan nafsaanteeda markaan ka hadlo koox jaya oo soo ciyaare iguma qaadan inaa wax badan oo maaragta dhibaato aan la kulmo maraan kala qabsaday kooxda horseed kulinkii ugu horey marka ciyaare waxaan ahaa ciyaaryahan maaragta oo sana camal kooxda gaadiidkuna marka waxaan rajaynaa insha Allah kulinkii ugu horey marka ciyaare inaan weligiis beeli jira camal ciyaar asna inay celiyaa waan rajaynaa taas waa qoon dheer insha Allah kooxda gaadiidkuna kooxda cusub waxaan u rajaynaa inaan la naqdo aan la gaaro guul fara badan mustaqbalkayga iyo waayahayga inaan ka faa'iido waxaad nahay qotay ciyaartoygii labaad ee si professional loo soo bandhigay markii iibkiisa iyo hawlihiisa la dhamaystiray maxaa ku dhigi doonaa saran doontaa ka ciyaaryahan xasan ahaan inaad ciyaaryahan Soomaaliyeed waddo kale aad furi doontiin maxaad jeceshahay inaad ku soo kordhiso wallahi horta ciyaaryahan walba wuxuu jecel yahay inuu iskoor dhigo mar walba markaan uu garoonka iskoor ku dhigo markuu koox ka tago oo soo dhaweyntiisa inuu dadkiisa soo dhigan hayla taasi waa iskoor kale runta dartan aan waxaa isku tiraa Soomaali wax laga sameeyo oo ku dhiman oo maaragta sameyn doonta ma jirto laakiin ciyaartoyda maaragta heelka soo baxay ciyaartoyda Soomaali oo ka ciyaarto waxaan leeyahay mar walba mar alaala iyo jabina qof walba asaga isgaarsiin karo meel sare أنا قاعد عيارين مارك كبدن عن كسبي هذا عن عيارين سوقا مارك أبو قارسن لازم أرد يخطط سواسة أو مارك قاعد تلا كل شيء عيارين الصومالي ما دام عيارين عيارين حالي عيارين الصومالي من الجبينة مر على مر والبا نفذ مارك وش نكتب بالكلمة ugu dambeyntii adigu maxaa ku khaasaa aad uga duwan tahay ciyaartoyda Soomaaliyeed meel ugu tusbay والله هرت عيارتي مركا dad qaar badan waa arkeen markii kooxda qabado ee la kulmaan inta liitaan kubadda cagta iska dhaafaan markaan waxaa isku xiraa ciyaaryahanka ugu dhibaatada badan oo kubadda cagta ciyaara arkay marwana ahay taas markaa hoos dhacay ugu keenin ana igu xiran kubadda cagta waxaan fariis doonaa marka aan xabsigaanteeda aan laakiin ka filaadin ama dad binacsiin taas kubadda cagta waxay aan leeyahay ciyaartooyda markaa hadda joogtay mar walba isku kalsoonaada ani jabin ugu dambeyntii taageerayaashaada meel walba daafaca caalamka ee Soomaaliyeed oo shay ku sugan maxaad farin ka tagsan والله waxaan leeyahay taageeraha Soomaaliyeed mar alaala idinka weeleysi idinka karo qaadi karo marka waxaan idinka codsigeynaa waxaan idin leeyahay ciyaartoy walba Soomaali ah mar walba idoo dhisa taageera asagoo soo marayta ugu taariikhay dadaala marka waxaan idin rajaynaynaa insha Allah fiidiyowga taariikhiin ku badan aad badan waad tahay xarajadiya halkaaga meel ma gaari karo waaniga iyo xasan xasaasi oo ah best player ka ciyaaryahanka Soomaaliyeed ee badan ay jecel yihiin ciyaarada garab ciyaaraan qaar badan oo baas ka soo jiray oo hargeysa ku sugan aan leeyahay maanta halkan ayuu yahay insha Allah waxaan rajayn doonaa mar walba ka soo muuqdo magaalada meel walba Soomaaliyeed jirto aad badan salaamina aniga iyo xasan مرة بدل ما تدخل صور مقدمة وكل دونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المصير.